waxaa hoos u dhacay Soomaaliya baahida fardaha iyadoo markii hore loo adeegsan jiray gaadiid ahaan ayaa hadda waxaa meesha ka saaray gawaarida iyo tiknoolajiyada casriga ee isbedelaysa. dhanka kale waxaa jira rag dhaqda oo kireeya xafladaha iyo goobaha soo dhaweynta iyagana waxa loo baahdaa marar dhif ah. Maxamed Xasan Dhalo ayaa warbixintan Garowe ka soo diray. Soomaaliya farduhu waxa ay lahaayeen mudnaan gaar ah xilliganse waxa inta badan cayma tiray casriga adduunyo ee cadceed walba geediga ah. waxa fardihii helay wax badna hadda kama jooga fardii abaaro iyo dhulwa iyo dawlad la'aan iyo dadkii oo iska tagay iyo warqii askar iska qortay ragii iska leeyahay baa iska helanay. Cabdirasaaq dhawaan ayuu jarabaray sangahan uu gobolka dhacay ku joogo waa 3 jir waxaana uu ugu yar yahay 7 neef oo reerkan u haray. anaga farduhu waa iibsanay bariga hore geeyeen faras ka bilowday ka bacdana way tarbay ilaa heerkana way joogan hadda adu 50 sano ka badan mar adu 30 marba heer bay soo joogeen hadda laakiin way sii wareereen waa gabaabsi ilaa imisa 7 xabo maaha saata ka jooga ka dhaqan dif iyo markan oo kale ayuunbaa loo baxdaa waa goorta munaasabadaha dhaqanka iyo hidaha la isku xujaysanayo. dhacdooyinkan iyo munaasabadaha caynkana waa marka kaliya ee ragga fardaha dhaqda ay dhadhamo ka helaan. maalinta xalfaduhu jiraan way anaga qadadayba ma ka bashaahnaaba markii waxaad ka heshid hal xalfada ama wax yar soo dhaweynaba wayaan 300 ama 200 ka soo galay kharaska kaaga baxaba ma dhama wax ku soo galay. dooxooyinka gamaanka caanka ku ah Soomaaliya waxa kamid ah dooxada Nugaal oo iminka qaar kamid ah banankii farduhu daaqi jireen daaro laga dhisay lagu barto duruus iyo tiknoolajiyad casri ah. Farxaan waxa uu kamid yahay ardayda dhaqanka soo bandhigtay ee fardaha dalbatay cilmiga kombiyuutarka ayuu ka bartaa jaamacadda BSU wuxuu qabaa in dhaqanka iyo hiduhu muhiim u yahay horumarka ardayda. farduhu waxay kamid yihiin waxyaabo aan aad u xiiseeyo barad inaan barto oo fardu fuul noqdana waan jeclaa laakiin waqtiga kan hadda la joogo oo waqtiga xaadirkan oo waqti tiknoolajiyad casriga ah ay shaqeyso fardihiina ay meesha tiknoolajiyadu kala baxday waxyaabo badan looga baahnaan jiray laakiin haddana wili sidii baan u jeclahay walow aan aqoon sida loo fuulo fardaha haddana waa jeclahay. wuxuu jeclaan lahaa in uu sida barbaartan ugu boodo waxay seetani u baahan tahay tababar baadiye oo ayaamo badan qaata. markay dhamaatay maalmihii farduhu kirada ku joogeen magaaladan waxaa loo kaxeeyay meel aan Garowe ka durugsanayn oo lagu hayo halkaas farduhu caws kama helaan waxaana loo daadshaa raashin loo soo iibshay. Maxamed Xasan Dhalo magaalada Garowe.